soo dhawaada saaxiibayaal waa walaalkiin wari indhoos fiid wanaagsan waqti walba idin tahay wanaagsan saddex qodob inta badan saddex qodob baan ku soo kooba sababtoo ah ma raba inaan waqtiga idinku dheereeyo lix sargaal ee saraakiisha nabad sugidda Masar ah ayaa la sheegay in ku sugan yihiin galguduud kuwaas oo ku jooga magaca hay'ad samafal wararkaas oo si hoose noo soo gaaray wili xaqiijintiisa iyo dabagalkiisa ayaan ku jirnaa hase ahaatee saraakiishan la sheegay magaca hay'ad samafal inay ku joogaan halkaas ayaa la sheegay inay tababar u wadaan qaar ka mid ah ciidamada nabad sugidda Soomaaliya iyo waliba kuwa militariga wararkaas iyo wixii ka soo kordha dabcan way soo bixi doonaan oo wax walba gadaal ayay ka imaan doonaan qodobka labaad haddaan u gudbana safiirka dalka Mareykanka oo u soo magacaabay Urdun waa safiir leh gar weyn laakiin waxa cajiib ah sheekada cajiibka waxay tahay dalka Urdun dadka mas'uuliyiinta waxa lagu leeyahay inta badan dawladdu waxay ku amartaa inay gar ka soo xiiraan safiirka dalka Mareykanka ee garka leh waxba kama qaban karto dalka Urdun mana amri karto safiirka dalka Mareykanka inay tiraahdo gar ka soo xiir taasoo ku noqotay shay ay dhaafi waayeen haddaba maxaa la gudboon mas'uuliyiinta dalka Urdun miyay u dhaafi doonaan ninkan garkiisa mase sida dadka kale ay u amri jireen ay u amri karaan aniga waxaan is leeyahay ninku waa reer Mareykane landheere banaandiga Soomaalida oo jireen qodobka kale oo cajiibka ah oo aan rabo in ay idila wadaago waxay tahay waa tay oran jireen reer mudugu bala ku degtay nin reer Austria waa dalkan Austria ee gobolka Tyrol caasimadiisa Innsbruck ayaa 100,000 oo euro waxa looga cunay jacayl beena war dhalinyaro waa idin digayaa iska ilaaliya iyamahan waxa soo baxday scam internet naago iska dhigaya inay jacayl kula jilayaan qadka ku soo galaya muddo dheer kula sheekeysanaya aad aaminaysid marka dambana ku dhacaya 44 jirkan gobolka Tyrol ee caasimadiisa Innsbruck ka soo jeeda ee dalkan Austria ayaa la sheegay lacag 100,000 oo euro in naagtan ka dhacday kadib markii jacayl aad u qoto dheer leh ula dhacay booliska ayaana ka digaya jacaylada beenta ah ee scamka ah ee internetka ay ku soo badanaya in laga digtoonaado waliba uga digaya dhalinyarada iyo odayaasha saddexdaas qodob ayaan ku soo koobayaa saaxiibayaal intaan waqti kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sida nabadgelyo